بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا قالي وايد سلام ميل البواد جوجتان كسو دوادا جنال كينا كرين يقرحين فضل هدي أنو عسبتهين ما شاء الله. كسو دوادا جنال كينا أصحابي ما انتو وحان وضنا إن شاء الله وأن سميساننا بإذن الله الكريم chicken إبريس ليسو كرناي انتانو قدار إن شاء الله كاسو chicken fried rice الله ما شاء الله. waxaan ku haystaa beans, barbarooni, basal, yaanyo, kamsar, carrot, chicken. waxaan kaleeto haystaa kan waa rosemary. waa ujeedin xawaajiyaasha saddexdan ayaa waxaan ka isticmaalaa isbeesyaasha. kan waxaa waaye parsley iyo chicken masala. waxaa kaleeto haystaa xawaajiga oo maxaa la dhahaa maraq digaaga qudaarta ka samaysan, soy sauce. waa kana maraq digaaga qudaarta ah waaye. waxaa kaleeton haystaa soy sauce maasha allah. intaan ayaan isku samaysanaya. waxaa kaleeton haystaa bariiskii insha allah aan ku samaysan lahay. carrot isagana si yaryar aan usoo jartay ujeedin si dheer aan u jartay. intaas ayaan rabaa inaan isku samaysto biidnillahi alkariim. haddana dabka ayaan waxaan soo saartay sida ujeedaan digsigeygii iyo saliid. kadib waxaan ku shubtay saliidda ayaan waxaan ku shubay xawaajigaas oo xawaajigan dhuudhuubka ayaan waxaan ku shubay saliidda. waxyar ayaan ugu sugayaa si uu igu carfo. kadibna waxaan ku darsanayaa basasha qiyaastan inta isticmaalayo waa 2 xabo oo normal ah, 2 xabo basal ah. marka waan isku qasayaa in yar ayaan u sugayaa insha Allah intee basasha oo dhacaanka uu ka baxaayo. basasha waa tanaa had biyihii wuu ka soo baxay, dhacaanku wuu ka dhamaaday sida ujeedaan maasha Allah. sidaas iyo inoo soo baxday. kadib waxaan ku darsanaynaa yaanyada waxaan isticmaalayaa waa 2 xabo iska yar waa iska normal ah si ay dhanaan yar inoogu siiso insha Allah. ayaan yaanyada u isticmaalaynaa ay noogu macaaneyso. yaanyada ayaan sidoo kale ku qasayaa. markii aan qaso in yar ayaa aydan u sugayaa insha Allah. daboolka ayaan saarnay sidii igu huurto ayaa ayada u jilacdo. waa kana yaanyadin waa ii jilacday sidan ayaa iigu soo baxday sida ujeedaan maasha Allah. chicken caadi ah chickenka ibriiska markii la iskori maasha Allah aad ayuu u macaan yahay. waa bariis iyo chicken la isku kariyo kaleeto laakiin waxaa la dhahaa chicken fried rice aa la dhahaa. haddana waa kana waxaan ku darsaday carrotkii aan sida dhaadheer u jartay. yacni waa bariis nafaqaysan waa ayu qudaar maasha Allah. qudaar fara badan ayaa ku jiro. yaa waxaa haysta kare ayaa la dhahaa. intii ka badan haysto waa ku darsanay, hadaa ka yar haysto waa ku darsanay maasha Allah. wuxuu ka diidayo ma laha. kadib markii aan kusoo darsado carrotkii oo wax yar aan u sugay isigana uu igu huro carrotka jilcay. kadib waxaan ku darsanayaa beanstii digirta dhaadheer oo aan jarjaray waaye. kadibna waxaan ku darsaday chickenkii. kadib waan isku qasayaa marka intaan isugu geeyo. marka hadda in yar ayaan isku qasanayaa waan is dhexgelinayaa chickenka iyo qudaarta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe gambaleelkana taabo si uu kugu soo dhaco waxyaalo walba aan soo dhignay insha Allah. like-na si una sii share garay asxaabtaada insha Allah si uga faa'iideystaan channelka Karin Qurxin. waxaa lagu soo bandhigaa maasha Allah waxyaalo fara badan sida waxyaalaha caafimaadka oo kaleeto, isqurxinta, cunno karinta, waxyaalaha la iibiyo sida dharka, waxyaalaha guryaha lagu carfisto, cadarada, go-yaasha maasha Allah. haddana waxaan ku darsaday sida ujeedaan in yar oo soy sauce ah. kadibna hadda waxaan ku darsanayaa parsley. kadibna waxaan ku darsanayaa rosemary. kadib waxaan ku darsanayaa chicken masala.
kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaado cusbo ah. waxaan kadib ku darsanayaa xawaajiga yacni maraq digaaga cafwan ee ka samaysnaa cusbada ayaa waxaan ku darsanayaa hal qaado iyo haaf ee ka samaysnaa qudaarta cusbada kulaha cafwan maraq digaaga qudaarta ka samaysan waaye ayaa waxaan ku darsanayaa hal qaado iyo haaf. yacni waxaan rabay markaan cusbada uu ka samaysay aan leeyahay maraq digaagan cusbada ku badan marka insha Allah uma baahan inaan wax fara badan ka isticmaalo ku badiso yani dhanaan zaid uu noqonayaa ina cusbada kalena aad ka yareysid waa markaas ama waaba iska dhaaf kartaa hadaa kan ka isticmaashid. marka intaas isku darsado waa isku qasaya sida ujeedid maasha Allah suugo qatar ayuu inoogu soo baxay sida aragtaan wax biyo ahna kumaan darin waa un dhacaankiisa qudaarta wixiisa ee soo dhashay. haddana inta waxaan soo saartay digsiga aan bariis ku samaysan lahaa. bariiska marka hore ayaa biyo yar lagu soo karinaya saliid yar iyo cusbo ayaan ku daray kadib waxaan u noqonaynaa digsigeena maasha Allah sidan ayuu inta noogu karkarayaa. marka waxaan ku darsaday hal qaado toon ah toonta hadaa soo arkayseen. haddana waxaan ku darsaday kamsar caleen bas maasha Allah. marka hadda kan dabka waan ka daminayaa insha Allah kadib waxaan bilaabayaa inaan bariiskeeni marka hore aan biyaha aan ku soo kariyo si aan ugu soo jilciyo. marka bariiska ayaan dabka soo saaray digsiga hadda uu karkaraya sida ujeedaan biyaha marka bariiska ayaan ku darsanayaa. marka qiyaasta waxaan karinayaa 3 daqiiqo adiga 3 daqiiqo ayaan karinayaa bal waa arkeena insha Allah. kadib waxaan ku darsanayaa hayl iyo qarfo si ay ugu carfiyaan biidnillaahi kariim. markii aan ku bagto bariiska markii aan ku wada darsado waxaan ku darsanayaa hayl iyo qarfo haddana waxaan ku darsaday haylka iyo qarfo kadibna daboolka ayaan saaranayaa 3 daqiiqo ayaan kusoo noqonayaa kadib. haddana waa kana asxaabay yacni inuu bisayl xaqiisu u dhawaada la rabaa oo yacni in yar oo huuris ah bas ay u dhiman yihiin sababtoo si ugu huursano qudaarteeni iyo chickenkeena isugu dhex jiro kaliya waa ka bariiska aad ma u jilcano mana kugu dhagdhagaayo oo yacni ma wada bislaanin oo wax yar intii la huuriyay camal oo dhib. marka hadda waan qaaday biyahan ka soo miirayaa. hadda waxaan ku soo ceshaday dabkii ayaa waxaan ku soo ceshtay suugadeeni aan ku samaysan lahayn bariiska. marka waxaan rabaa si ay igu kulaato si aan ugu darsado bariiska. marka hadda waxaan bilaabayaa inaan ku daro bariiskii ujeedaan sida uu furfuran yahay maasha Allah. waxaana saas oo furfur ugu noqonaya waxaa waaye haddii aan saliid ku saarin oo aad biyo kaliya ku saarto uu iska kaa qabsanayaa. marka waxa uu u kala furfurmaayo waxaa waaye oo kala celinayo inta yar ee saliidda ah. 2 qaado saliid ayaan ku shubay marka hore biyaha sida arkayseen. marka hadda bariiskii iyo waxaan isdhexgelinayaa qudaarteydii iyo chickenkeygii ayaan si fiican isku dhexgelinayaa in yar ayaan ugu darayaa kolba in yar ayaan ku darayaa. qaybta hore ayaan kusoo giidiyay oo isku soo dhexgeliyay. haddana qaybta kale ayaan ku daranayaa ayaan ku darsanayaa. sidii oo kale marka si fiican ayaan isku dhexgelinayaa. waa ujeedeen bariiska xoogaa wuu i yar bisil yahay kaliya wuxuu u baahan yahay inaan qudaartan dhexgeliyo si uu bariiska iyo qudaarta ay isu dhexgalaan maraq yaraa ee qudaarta maasha Allah ay isku dhexgalaan
kadibna waa isku huurinaya oo kaliya wax biyo ah dib uguma daraayo. Marka horeeta ayaa bariiska xoogaa yar lasoo bisleeyay. Haddana waxaan ku darsanayaa sida ujeedaan in yar oo liin ah, waa liin dhanaanteeni caadiga oo miiray, waa lemon juice waaye, ayaan kor uga shubay. kadibna waxaan ku darayaa kamsar iyo toon ayaan si oo iigu carfo. markii aan daboolka saaro intuu iigu huurayo oo maasha Allah caraftiisa oo gudaha uga galo maasha Allah. barbarooniga haddaa marka hore ku karisid xoogaa uu kaa yara qaraar ayuu kaa noqonayaa, laakiin marka oo maasha Allah bariisku kuu bislaado kor hadda uga shubtid maasha Allah si caraf badan ayuu kugu soo baxayaa. haddana waa kanaa markii aan si fiican wax yar aan soo huuriyo waa kaas bariiska sida ujeedeen waa furfur waaye. haddana waa isku gidgidinayaa marka sidoo midkii hoos jiray kor u imaado, midka kor jirana hoos u tago insha Allah. haddana maasha Allah waa diyaar ayuu inoo yahay. maasha Allah diyaar waaye bariiskeena sida ujeedada sida uu qurux badan yahay. waa bariis caafimaad leh maasha Allah, waa bariis qudaar oo dhan wadishaa ma ahan bariis jaay oo kusoo eegayo maasha Allah. waa bariis maasha Allah nafaqo ah ka helaysid insha Allah. haddana waan soo diyaarsanayaa bal aragna siduu inoogu soo baxo maasha Allah asxaabey. haddana waa kanaa jikinkeeni iyo bariiskeeni iyo qudaaraheen aan isku karsanay, chicken fried rice aa la dhahaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.